aabihii qoobka ciyaarka caalamka Michael Jackson. isagu waa kan ugu caansan dadka ay maasuuniyadda shaydaanka caabuda sixirka madow ku dileen derdereen oo daadifeeyeen duulkan aan la arag tobaneeyo sano kadib shirqoolkii ay maasuuniyaddu ku dileen Michael Jackson. fanaaniin badan ayaa ku sirmay kuwaas oo ku nool kadeed adduunyo, waxaana ka mid ah fanaanka Omar Barbar oo maasuuniyaddu barbar u tuurtay buurana ka riday. isagu waa madadaaliye Soomaaliyeed oo miisaan ku lahaa fanka, macne iyo murtina ku joogay baraha bulshada. aabihii qoobka ciyaarka caalamka Michael Jackson oo ahaa fanaan ayaa dhex muquurtay mawjadaha mugdiga ee maasuuniyadda si uu magac iyo maalba uga sameeyo, wuxuuna maray shuruudaha adoonsiga ee lagu bedelay midabkiisii madooba iyo muuqiisii Afrikaannimo. aabihii qoobka ciyaarka caalamka Michael Jackson sanado badan oo fankiisu samada marayay, dunidana looga durbaantumay dacal ilaa dacal. Michael Jackson ayaa ku noolaa silica iyo saxariirka hoose ee maasuuniyadda. markii uu xamili waayeyna waxa uu ku dhacay bannaanka, taasoo keentay in maasuuniyaddu ay ka daba shitaan shooladihii sharafdilka iyo shirqoolka, iyagoo sheegay inuu faraxumeeyey wiil yar, taasoo magaciisa dhulka la gashay. ugu dambaynna gacanta maasuuniyadda ayuu ku baxay, iyagoo adeegsanaya dhakhtarkiisii gaarka ahaa, kaasoo ku duray cirbad suna oo sababtay inuu dunida faaruujiyo fanaankii caanka ahaa ee Michael Jackson. barnaamijka bacriminta IVF ee lagu beerayo mataano iyo ilmo keliya ayuu soo kordhiyey cusbitaalka Marwo Fertility Center, waana barnaamij anfacaya lamaanayaasha aan ubadka helin in muddo ah. wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda. Omar wuxuu u muuqdaa shakhsiyad ku milantay maasuuniyadda, balse damcay inuu ka laabto mar kale, taasoo keentay maasuuniyaddu inay isticmaalaan tabaha iyo xeeladaha looga takhaluso dadka ka goosta kooxdan, oo ay tahay in loo isticmaalo character assassination, sida in la shirqoolo sumcadda qofka iyadoo lagu eedeynayo fadeexad kufsi ah, ama loo isticmaalo sixir si loo waalo ugu dambeynna loogu dilo shirqool. inkastoo aanay Soomaalidu faham badan ka haysan masiibada qarsoon ee maasuuniyaddu ay ka wadaan dunida, iyagoo dadka ku marin habaabinaya maal adduun iyo macaashuu Ilaahay mamnuucay in laga raadiyo marin aan ahayn kan Eebe, kan Alle. ka mid noqoshada maasuuniyadda ayaa loo maraa marin ciriiri ah iyo nolol mugdiya oo lagu xalaashado wax kastoo Ilaahay xarimay, cabidda dhiigga aadanaha iyo xayawaanka, bedelista abuurta Eebe iyo macaamilka shaydaanka loo sameeyo oo ah cibaadooyinka Alle ka caraysiiya. waxaa jira sixir ay kooxdani caan ku tahay oo la yiraahdo Jewish Magic iyo Black Magic, kuwaasoo loogu tuubaraaco macnaha qofnimo iyo maamulidda mabaadi'da qofeed iyo meel. markastoo qofku uu sii muquurto mawjadahan halista badan, waxa uu ku qasban yahay inuu la macaamilo shayaadiinta, fuliyana mishin kasta oo maasuuniyaddu ay rabaan. kooxda Illuminati oo ah mujtamac qarsoon ayaa la aasaasay sanadii 1776. kooxda Illuminati oo ah mujtamac qarsoon ayaa lagu aasaasay Bavarianka oo haatan Jarmalka loo yaqaan, waxayna jirtay intii u dhaxaysay sanadihii 1776 ilaa 1785. waxayna isku magacaabi jireen inay yihiin dad dhammaystiran oo maalin nolosha ka mid ah ay dunida oo dhan iyagu maamuli doonaan. waxaa aasaasay profesorkii shaydaan caabudka ahaa ee cilmiga qaanuunka bartay oo la oran jiray Adam Weishaupt, kaasoo Freemasoniska Illuminatigu ay aaminsan yihiin malag awood badan oo nolol la barbar dhigi kara uusan adduunyada joogin.